buurta hal qariso waxay ka mid tahay buuraha dabiiciga ah ee ku yaal gudaha dalkeena Soomaaliya, khaasatan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. waxayna kaga taal gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Soomaaliya. waxa maalin kasta u dalxiisa dadka deegaanka xagga maalmaha qaar ay yimaadaan dad dalxiisayaal oo ka yimaada deegaanada Soomaalida ay ugu horeeyaan deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waa Mudug iyo Galgaduud. Baxda waxaa ku wareegsan gabi ahaanteed buuro oo waxay ku taalaa meel hoos u yara degan. waxaa ugu weyn buuraha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Soomaaliya buurta hal qariso oo ku taal dhinaca bari ee deegaanka. marka aad saaran tahay buurta magaaladu waxay kaga muuqanaysaa hoostaada oo guriguri ayay kugu muuqanaysaa magaaladu. taasina waa sababta ay dadku ugu dalxiisaan buurtani hal qariso. Obi waa bartaan ku soo korayo Obi laygu soo barbaadiyay allo belayada hareer mari Obi boqortooyo soo jirtayo Obi burjigeedu adag yahay Obi waa bartaan ku soo korayo Obi laygu soo barbaadiyay allo belayada hareer mari Obi boqortooyo soo jirtayo Obi burjigeedu adag yahay waxaan kula kulmay buurta hal qarido qaar ka mid ah dhalinyarta degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Soomaaliya oo xilligaas dalxiis ku dul joogay buurta hal qarido. ugu horeyn waxa weydiiyay sababta ay ugu soo dalxiiseen buurtani. sawiro asxaabtida meeshan waxa soo nimaadna galabka soo Arbaca galabka soo Khamiista meeshan waxa sababa u nimid xamida in aan magaalada daadawno waxa ku soo kordhay waxyaabo ka go'ay iyo fidaba. buurtan maanta waxa isugu nimid inaan sawiraysa qaadno taas oo ah buurta ugu caalamisan ee ku taala degmada Baxdo. maalin kasta Arbaca iyo maalin kasta Khamiista dhalinyarada ayaa u soo dalxiis tagta si ay uga sawiro qurux badan isa qaadaan iyo si ay deegaankooda u daawadaan quruxda iyo bilicda ay leeyihiin. leeyahay xaq caalamiito hadii leeyahay xaq mataqaana u dalxiisid sawiro waa loo soo aadaa sidoo kale meeshan waa meel dhir leh oo aad iyo aad u qurux badan sidoo kale degmada Baxdo waa buuraha Baxdo xitaa iyadoo la dhihin gobolka Galgaduud waa meelaha qaar kood ee buuraha laga sheego Baxda kamid ah meelaha buuraha badana loo soo dalxiiso annagu sidoo kale waxaan dalxiis ugu soo tagnaa degmada Baxdo sida u jeedin waa beeca aad iyo aad u weyn waxaan galab walba u soo aadan dhalinyaradu inay u soo damaashaa tagaan meeshan waxaana keenaa inaan u soo damaashaa tagno inay tahay meel ka fiican oo ka nolol fiican meelaha qaar kood markii la arko. ilaahay waxa uu ku galladaystay buurtani khayraad fara badan. haddaba dadka deegaanku ma ka faa'iidaystaan khayraadkaasi qaabceen ka ah ayay isaga faa'iidaystaan. waa leedahay khayraadka laga faa'iidaysto buurtan hal qarido aad iyo aad ay u fara badan yihiin. waxaa ka mid ah khayraadka laga faa'iidaysto in dhoobo laga guro dhoobadaas oo dhismaha lagu sameeyo. sidoo kale khayraadka looga faa'iidaysto waxaa ka mid ah buurtan hal qarido jaayga kala oo shubka oo kala waa laga badanaa way ka gurtaan bulshaweynta ku nool degmada Baxdo. faa'iidooyinka kale ay ka gurtaan waxaa ka mid ah in dhagax oo kala ay ka gurtaan dadka deegaanka. si kastaba ha ahaatee buurtani waxa ay ka mid tahay buuraha ugu waaweyn gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxayna leedahay khayraad fara badan oo inta badan u baahan cilmi xoogan. waxaan ahay saaxiib yaal Cabdulwaaxid Axmed Haashi waad ku mahadsantihiin daawashadiina ee fadlan share garay.